kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah Muuse Biixi oo war la yaab leh ka soo saaray rabshadihii shalay ka dhacay Somaliland isagoo mucaaradka hanjabaad kulul u jeediyay iyo banaanbaxayaasha taageersan iyo ciidamada canfarta oo dagaal culus ku soo qaaday dad shacab ah iyadoo dagaalka markii dambe uu ku soo biiray ciidamada liyu booliska ee dowladda Soomaalida halkaasi oo wali dagaalku ka socdo qodobadaas iyo kuwa kale intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul uga hadlay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee shalay toole xisbiga mucaaradka iyo taageerayaashoodu ay ka dhigeen magaalooyinka Somaliland kuwaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac Muuse Biixi markii uu horeysay waxa uu tacsiyay dadkii ku dhintay banaanbaxyada isagoo sidoo kale caafimaad u rajeeyay kuwii ku dhaawacmay wuxuuna sheegay in tallaabo xumo ka timid qaybo ka mid ah dadka Somaliland ay banaanbaxyadaasi u dhaceen waxaana dhacay dhimasho dhaawac iyo khasaare aan loo baahnayn khasaaraha looma wada sinee qaybo inaga mid ah ayaa ku calool adag oo ilaa iyo hadda ku adkaysanaya wixii dhacay waxaa ka mas'uula gudoomiyaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga UCID iyo gudoomiyihii hore ee wadani duruufahayna haysta waan ogsoonahay ma xamili karo dhibaatooyin lamid ah kuwii dhacay ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi marka laga tusaale qaato waxyeelada ay muujinayso in la beegsado ciidamada ammaanka ee loo diyaariyay inay amnigooda iyo nabadgelyadooda sugaan balse loo weeciyo in weerar lagu qaado sidaasna uu ku gaadhay khasaare intana soo gaadhay oo aan hubno dhimashadu waa ilaa iyo 5 qof oo 3 ka mid ah Hargeysa iyo 1 Burco ah halka ruuxa kalena uu ku geeriyooday magaalada Ceerigaabo in ka badan 100 ruux ama aan ka yarayn ayaa boqolkiiba 60 dadka ku dhaawacmay uu ahaa ciidamadii qaranka oo warafshiid budh iyo bir qaarna ay xabada ku yaalaan ayuu yidhi Muuse Biixi ragga ku biiray golaha wakiilada oo loo doortay kuna biiray golaha qaranka oo xasaanada haysta inay qayb ka noqdaan arrintaasi xasaanad loo haysan maayo ayuu Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in mar dambe loo ogolaan doonin asxaabta mucaaradka kuna filan tahay rabshadihii sababay dhimashada dhaawaca isugu jiray ee 11 Agosto 2022 ciddii fidna mudaharaad iyo abaabul gasha mana laga aqbalayo in dalku uu burburo mucaaradku uma muuqdaan inay dibadbaxyada ku dhigtaan meelihii loogu talagalay ee ciidamada loogu diyaariyay waa arrin dambi ah qofkii mudaharaad sameeya loogumana gambanayo dimuqraadiyad iyo xorriyatul qowl hay-adaha amniga ee loo xilsaaray uma fiirin doonaan xasaanada uu qofku leeyahay ayuu hadalkiisa ku yiri Muuse Biixi Cabdi dhinaca kale hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan banaanbaxyada ka dhanka ah xukuumadda ilaa iyo doorashada ay ka bilaabanto madaxtooyada Somaliland xukuumadda iyo mucaaradka Somaliland ayaa wali isu goodinaya dhinac waliba waxa uu sheegayaa inuu ku taagan yahay dhabaha dastuurka uu u ogol yahay halka ay isku turturayaan khasaarihii ka dhashay rabshadaha ee sababay dhimashada iyo dhaawaca haatan aynu fiirino faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya weeraray maleeshiyaadka canfarta iyo ciidamo ka tirsan maamulka canfarta ee dalkaasi Itoobiya ku soo qaadeen dad shacab ah oo Soomaaliyeed oo degan gobolkaasi City gaar ahaan magaalada Cundhufo siday dadka deegaanku sheegayaan dagaal xooggan oo la isu adeegsaday hubka noocyihiisa kala duwan ayaa dhexmaray maleeshiyaadka canfarta oo ka mid ah qowmiyadda Itoobiya iyo dadka deegaanka ah ay weerareen oo hub u qaatay si ay isaga dhiciyaan inta la xaqiijiyay dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 10 qof oo isugu jira kooxihii dagaalamayay iyo dadka shacabka ee Soomaaliyeed waxaana la xaqiijiyay inuu dhaawacu intaasi ka sii badan yahay maleeshiyaadka canfarta ayaa gubay guryo ay dad shacab ah deganaayeen
taasi oo sababtay inay dad badan ku soo biiraan dagaalka si ay isaga celiyaan maleeshiyaadka dagaalka gardarrada ah ku soo qaaday shacabka Soomaaliyeed. Dagaalka ayaa markii dambe waxaa ku soo biiray ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyagoo maleeshiyaadka canfarta ay ka saareen goobihii ay soo weerareen. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in hadda xaaladdu tahay mid deggan, waxaana la xaqiijiyay in jab iyo khasaare xooggan loo geystay maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ee canfarta, iyadoo goobihii lagu dagaalamay ee hadda ciidamada liyu booliska iyo dadka deegaanku gacanta ku hayaan. Haatan aynu fiirino natiijada hordhaca ee doorashooyinka madaxweynaha Kenya ayaa muujinaysa tartan aad la isugu dhow yahay oo ay adag tahay in la saadaaliyo cidda ku guuleysan doonta. Haddii natiijooyinka ay muujinayaan hal arrin ayaa ah in musharax kasta oo laga guuleysto, haddii uu noqon lahaa Raila Odinga ama William Ruto, uu dood ka keeni doono natiijada isla markaana la tiigsan doono maxkamad. Kenya kama dhicin doorasho aan la isku khilaafin oo loolan ka dhalanin tan iyo 2002, waxaana muranadii hore qaarkood ay hogaamiyeen dhiig badan oo ku daatay, kuwaasi oo ka dhashay dagaal dhex maray qowmiyado, isku dhacyo shacab iyo booliiska. Ma jiro wax musharax oo kan kale uu ka hormaray wax ka badan 100%. Tartanka ayaa hadda waxaa si dirqi ah ku hogaaminaya William Ruto oo Raila Odinga ku hogaaminaya codadka ah 49.9 iyo 49.4. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Kenya ayaa waxaa saaran cadaadis inuu soo saaro natiijada xor iyo dhexdhexaad ah, maadaama doorashadii 2017 la baabi'iyay khaladaad badan oo dhacay oo uu guddigu sameeyey. Kormeeraha caalamiga ah ayaa Khamiistii ka digay in dib u dhaca haysta shaacinta natiijada doorashada rasmiga ah uu horseedi karo in la faafiyo warar been abuur ah oo la xiriira natiijada doorashada, taasi oo hogaamin karta in dadka qaar aysan dhowaan aqbalin natiijada rasmiga ah ayaga oo rumaysan haya midda been abuurka ee hadda wareegaysa oo kale. Guddoomiyaha doorashada ayaa haysta ilaa 16 Agost si uu u shaaciyo natiijada rasmiga ah. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay. Sidaas iyo nabadgelyo.